walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. waxaa loo baahan yahay xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo alghil waalxaqd waalbagy waalxasad waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo. soomaaliga inaanan kuba wada garan baa suurtagale waa waxaan laaliya wixii uur xumo iyo uurku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan. qofka muslimkaa 3 meelood unbaa meel laga rabaa inuu deganaado, inuu ka hooseeyaa marnaba sharciguma soo dhoweynayo. martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaaroo ilaahay doortay, waa martabatu liihaar. naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa iyadu waa martabad dad gaara uun ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayu'iruuna calaa anfusihim walow bihim wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. martabad labaad ayaa jirto oo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato, an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik. martabad ka hoosaysaa jira labadaaba, waa tanaynu ka warramayno. waa qalbigaagu inuu caafimaad qabo, at least inaad bukin, ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba, ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto. maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno. maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan. ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahay, ma aha inuu dadka ka caqli yaryahay, ma aha inuu dadka ka hobi yaryahay, waxaasoo dhan maaha. ilaa naklyar weeban bay haystaan. laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa? waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan, dabeetana ninba nin rabo inuu reebo, ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo, midba miduu bagaleeyay jabkiisa. mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto, midhmidh uma guulaysto, koox kooxna uma guulaysto, dowlad ahaanna uma guulaysto.